kulankan afurka ah ee Sadiq Warfaa uu u sameeyay waxgaradka degmada Galdogob ayaa ahaa mid uu doonayay inuu kaga dhaadhiciyo qorshayaashiisa ku xeeran hankiisa kuwa oo ah in Sadiq Warfaa haatan uu doonayo inuu dalkiisa iyo dadkiisa u adeego. Mr. Warfaa ayaa sheegay in haddii dadkani ay u ogolaadaan inuu matalo uu ugu adeegi doono si muwaadinimo ah isla markaana Soomaali weyn oo dhan uu sida ugu adeegi doono. Maanta waxaan doonayaa inaan idinla wadaago fikirkayga ku saabsan sidaan u arko sidaan u horumarin lahaa deegaankan iyo aan matali doono hadii lahayd. Marka koowaad waxaan nasiib u yeeshay inaan maanta ay tahay maalintii ka horeysay maalintii aan qaadan xornimada oo aan saacado gudahood u dabaaldegi doono lix guuradii ka soo wareegtay markii Soomaaliya xornimadeeda dib u qaadatay ee gobolada waqooyi gobolada koonfureed ku kulmeen oo Jamhuuriyadda Soomaaliya July 1st 1960 insha Allah ta'ala marka inaan iyaga u imaado aan la tashi weydiisto marka walaalayaal waxa weeye saawirtii Soomaaliya waxay maraysaa xilli kala guur xilli aad u adag ay maraysaa dadkan maanta halkaan fadhiya oo nabadoonnada iyo dadkan waxgaradka waa inay isweydiiyaan su'aasha aan weydiinaa waxay tahay haddii aad doonaysiin in Soomaaliya aad weydiin 4 sano kadib aad isweydiin su'aal mar walba isweydiinayno taasoo ah maxaa noo qabsoo maxaa sameysmay haddii baarlamaanka hadda jiro aad ku qanacsan tihiin anigu ma yihiin musharax idin taagan mi hadaa ku qanacsan tihiin haddii aad doonaysiin isbedel rasmi ah in uu ka dhasho deegaankan aad ku nooshihiin isbedel rasmi ah oo ku saabsan horumarkiisa qof shakhsi ah oo ku xira bulshada Soomaaliyeed ka dhalateen iyo deegaanada umada kala oo markuu Soomaaliya dhaxgal loo soo istaagay oo u baahantiin qof leh wax soo qabtay oo umada Soomaaliya wax soo qabtay anigu waxaan aaminsan shakhsigaas in aniga dadkii kulanka ka soo qayb galay qaarkood waxa ay sheegeen in Sadiq Warfaa ay dusha ka yaqaaneen oo meediyaha xaaladiisa ay kala socdeen run ahaantii diyaaru Sadiq inaan idaacadaha ka maqlan maahay waxa igu horeysay shalay masdaraad midkood daraad inay ahayd baan jeclahay baan anigu meel shirka dhaxiisa soo aragnay uu yiraahdo dad baan dirsanaynaa oo aan cadaalad iyo aqoon loo hadlo waxaan rajaynayaa inaad ninka koowaad ka noqonaysid dadku magaca hadba si uu matala halkaan hadda leelkasta iyo baa laga yaqaan laakiin anigu cidda saxaafadda iyo siyaasadda ku jira meeshaas ka dhageysta waxaan iraahdaa war hebelnimo iyo hebel yaa bedelayo waaga hore nin Ciise Watar la yiraahdaa beeshaan magaceeda lagu aqoon jiray hadda yaanta Sadiq iyo Liliya Cabdirashiid Khaliif Xaashi baa lagu yaqaanayo meel la iska haybsada ma ahe nimankaas siyaasiyiin rug cadaan loo ah waxaanu ku gudi jirnaa bishii barakeysneed ee Ramadaan khaas ahaan 10kii dambe khayrka badnaa waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inuu Ilaahay kulankeena kulanka khayr ka dhigo waxaan soo dhaweynayaa xafladan sida waxaan loo soo agaasimay waxaan sidoo kale soo dhaweynayaa musharaxa xildhibaanka Sadiq Xirsi Salaad Warfaa oo runtii aan dhalinyaro waxaan ku soo dhaweynayaa marka koowaad dhalinyaro ahaan marka labaadna runtii in badan baan saxaafadda iyo waxqabadkiisa aan kala soconay waxaan rajaynayaa in uu hadduu ku guuleysto yahay runtii ninka soo bixi kara goosashinka inkastoo ay joogeen dad reer Minneapolis kuwa oo Sadiq Warfaa si qoto dheer u yaqaanay dadkana u sharaxay waxa Sadiq Warfaa uu galo iyo waxa uu guday waxaan aad u soo dhaweynayaa xafladan sharafta leh oo loo qabtay Sadiq Warfaa anigoo si gaar ah u aqaana oo rag kale halkaan fadhiyana sidoo kale ay yaqaanaan gobolka Minnesota ayaan ka wada nimid Sadiq waa nin bulshada Soomaaliyeed oo gobolkaas ku nool sharaf ku leh sababtoo ma arag isbedelka iyo dhibaatada dadku mareen ayagu ma arkin wali meeshaas ay ladan yihiin barwaaqay haystaan 91 diba u maraysaa isnaacibka Sadiq inta anigu aan ogahay waa ninkii ugu horeeyay oo u kaca Soomaalidaas isnaacib oo kala qaybsan oo dabadda joogta inuu midayo waxyaabo sababta ugu weyn oo loo sameeyay barnaamijka fagaaraha oo bilowgiisa anigu wax ka ogaa waxa weeye Soomaali inuu ku midayo wuuna ka dhabeeyay ayadoo dadka qaarkood oo waliba dad qabiil iyo wax ku wata ay isku dayayaan inay ka dhigaan nin qabiil ka soo jeeda oo ay ku fashilmeen oo uu noqday nin Soomaali oo dhan u siman tahay oo cadaalad ka shaqeeya uu noqday kan afurka ah oo ah martiqaad uu Sadiq Warfaa u sameeyay dhammaan waxgaradka degmada Galdogob
ayaa waxaa loo gol leeyahay in Sadiq Warfaa uu si toos ah ugu cadeeyo musharaxnimadiisa iyo sida uu ugu bareeray inuu dib ugu soo laabto dalkiisii hooyo isla markaana uu bilaabo inuu u adeego ummadda Soomaaliyeed isaga oo gudaha dalka jooga. Iimaan Maxamed Gaani, Galdogob.